maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani Gabiley ayaa kormeer indhayn ah ku soo maray isbitaalka guud ee magaaladani Gabiley xabsiga weyn ee Gabiley iyo waliba saldhigga booliska ee degmadani Gabiley kormeerkan oo ujeedkiisu ahaa sidii looga gaashaman lahaa cudurka halista ah ee shuban biyoodka oo dhawaan ka dilaacay qaar ka mid ah gobolada dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland maamulkani oo kulamo gaar ah la qaatay maamulada kala duwan ee goobaha ay kormeerkani ku soo marayeen ayaa waxa ay maamulka Gabiley si wada jir ah baaq cod dheer ah ugu direen shacabka ku dhaqan guud ahaanba gobolkani Gabiley in ay ka digtoonaadaan waxyaabaha keeni kara shuban biyoodka isbitaalka guud ee gobolka waxa maanta booqasho iyo kormeer lagu hawleed maamulkii degmada iyo gobolkaba iyagoo maanta waxay gelin iyo ku gal xaaladda caafimaad ee isbitaalka guud ee Gabiley iyagoo qorshoodu yahay ka hortagga ama sidii loo xakameyn lahaa shuban biyoodka la sheegay inuu saameyn ku yeeshay gobolada dalka runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa maadaama mas'uuliyiintii gobolka iyo degmaduba ay qorshahoodii bilaabeen ahaa in haddii ay wax dhacaan si looga hortagi lahaa alxamdulillah maanta xaaladdu waa fiican tahay wax dhibaato ama wax xanuun oo jira oo xaaladda ku saabsan ma jiro laakiin haddana ka hortagu uu ka wanaagsan yahay daaweynta aad baynu mahadsan yihiin waxay warbixinayna waanu kala qaadanay sidii loogu diyaargaroobi lahaa lacalla haddii wax yimaadaan ilaahay naguma keene uu qorshuhu yahay midna waxaan leeyahay bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabiley in la ilaaliyo fayadhowrka ama caafimaadka bulshada waa tukubaad mid haddaynu ka ilaaliyo xanuunka shubanka ah iminka leeyahay ka dilaacay gobolka Togdheer runtii waa muhiim in bulshada ay iska ilaaliso kow waxaana ka mid ah nadaafadda in qofku mar kasta oo uu wax cunayo farxasho isla markaana uu farxasho iyo kulul amba saabuun amba tayl wuxuu helayo si uu uga hortago gudbinta xanuunka midda kale waxa weeye dalka waxa ka dilaacay xanuunka la yiraahdo shuban biyood oo runtii ka dhashay abaarihii dalka ka dhacay ee adkaa ugu horreyn maamul ahaan iyo shacab ahaanba waxaanu halkan uga ducaynaynaa bulshooyinka gobolka Togdheer ee uu saameynta baan ku yeeshay xanuunka shuban biyoodka waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto inta noolna Ilaahay ha ka badbaadiyo waxa weeye waa masiibo Ilaahay keenay Ilaahayna waxaanu weydiinaynaa bisha Ramadaan fadligeeda inuu Ilaahay waxa inaga xakameeyo dadku way iska tabaansan yihiin abaar baa naafaysay xanuun qaadi kari maayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta noogu yeekisi oo intii dhimatay oo naxariiso talabaad waxa weeye maanta waxaanu halkan u joognaa sidii xanuunku waxa weeye dawa xanuun si fudud ku fidayo shuban biyoodku ka hortagana ka wanaagsan daweynta ka gobol ahaan in laga sii tabaabushaysto Ilaahay naguma keenay haddii uu yimaado oo aynu inagoo diyaar ah runtii ay dawladda yimaadaan dadka runtii waxa weeye kormeer baan u soconaa meelaha ay khusayso fariin waxaanu jecelahay inaan bulshada aan u dirno waxa waa xanuun ku dhalanaya nadaafad darro iyo fayadhowrka oo aynu ilaalin weyno inta badan waxa uu ku gudbayo waa taabasho sida ay dhaqaatiirta caafimaadku inoo sheegeen taabashadii waxa weeye qof xanuunkii qabo oo salaanto oo adigoon iska hagaajin aad waxa weeye gacantaadii afka gaadho iyo cunto qof ama waxa weeye bakteeriyadii ama jeermiskii baa ku dhacday oo afka geliso gobol ahaan waxaynu runtii ku dadaalanaa inaynu lebilaabno nadaafadda runtii bulshada waxaan ugu baaqanaa gobol ahaan inay waxa weeye feejignaan dheeraada ay u yeeshaan xanuunkaas soo kordhay oo nadaafadda aynu aad iyo aad kor ugu qaadno oo dadku is ilaaliyaan dadkaan awoodi karin biyo nadiif ah cabaan ay biyaha iska karkarayaan fariinta kale aanu sheegaynaa waxa weeye haddii uu yimaado oo aad aragtaan qof xanuunku ku dhacay bulshada waxa weeye waxaan faranaa in aanay guryaha ku hayn ay si dhaqsaa ula yimaadaan goobaha isbitaalada iyo xanaanooyinka meelaha runtii laga howlgeli doono bal hadda sidii aan uga sii gaashaamo lahayn ama aan isaga moosi lahayn
xanuun ka dilaacay maaragtay gobolka Togdheer dhibaatooyinka faraha badan gaarsiistay dadka faraha badan ay ku dhinteen sidii aynu uga moosan lahayn oo waxa weeyaan aynu uga sii taxadir lahayn iyadoo waxa weeyaan sida uu inoo sheegay doctorku daweynta ay ka wanaagsan tahay ka hortagu runtii waxaan aad ugu hadlaqayaa maamulaha isbitaalka oo warbixin dhameystiran naga siiyay qaabkii aynu maaragtay ugu diyaar garoobi lahayn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in lagu keenay haddii uu gobolkeena soo gaaro shuban biyoodkaasi runtii anigoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan jecelahay halkan inaan duco uga diro dadweynaha mujtamaca gobolka Togdheer intii dhimatay Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo oo xanuunkaas asiibay inta la ildaran dhibaatadiisana inuu Ilaahay sacabo malaa'igeed uu mariyo oo xanuunka ka dulqaado وعلمي محمد شامع فوقان أرجع حرطة ستار تي في مقالة قبلي.